عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعد واللقمان هالكادي قد داونيسا فضلا هذا نقول عصبتها هاي لايك ستار فيديو سبسكرايب يوتيوب سبسكرايب قري فيديو لايك قري هدي تعيش هاي كومنتي نقول صبي ما أنت waxaan reaction-kooda bixin doonaa ama aan isla eegi doonaa Soomaalida Turkiga meheradaha ka furata iyo dawladda Turkiga sawirada fiidiyoga Soomaaliya sidaad u jeedaan waxaan arkaynaa maqaayadii Soomaaliyeed oo maalin dhaweed aan idin soo duubay ayadoo la xirayo ayaa durba maanta loo soo laabtay sidii magaca looga tirtiro sidaad u jeedaan waa nin askari oo dharcad ah ranjigaas ayuu soo qaatay wuxuuna masaxayaa magacii maqaayadda dadkii oo ku jiro ayadoo dadkii heraarada taagan la yaaban yihiin ninkan Turkiga ah oo askariga dharka cad ah waxa uu sameynayo waxa dhibaatooyin badan ka soo wajahay dhinaca Soomaalida dalka Turkiga in Soomaalidii dib weyn lagu hayo ayadoo haddana ay doorasho soo afhayso dalka Turkiga sidaad u jeedaan waa maqaayadii Soomaalida dadkii dhan baa laga ciirinayaa waxaa la leeyahay dalkan iskaga baxa maqaayad iyo midoonaba meeshan waxba kuma lahaan kartaan waxaad u jeedaan waa dadkii dharcadkii oo kor taagan dhibaatooyinka ugu badan ee wadamada ku haysta ama Turkiga kale ku haysta waa tan oo kale waraa loo yiri danaanad la haynin oo dareen ku joog iska dulqaata inaga ka furan weynay wadankeena horumarsan weynay adduunyada waa la kala tagay marka ina wadan kale lagu ciilaayo wadan kale wallahi ku socod oo sugaya magaca intii laga tirtirayo waad u jeedaan Soomaaliya meel kasta ay joogto waxaan rabaa inay ogaadaan dalka Turkiga inaysan welcome ku ahayn oo dalkooda iskaga laabtaan inta joogta Turki waxaa la yaabay ilaa hadda Soomaalidii oo Turkiga soo qulqulayso ayaguna saan oo la dhaqmayaan dalka Soomaalida ilaa hadda madaxweynaha dawladda Soomaaliya oo san ka hadlin iyo wasiirka dibadda ilaa hadda uusan waxba ka soo geeysan hadallo iyo qoraallo oo waxba laga heen sidaad u jeedaan maqaayadii waa lagu heeraarsan yahay waxaas aad u jeedaan waa Turki ka soo horjeeda meesha in la xiro Soomaalidii oo la yaaban maqaayadii laga soo saaray ayagoo cuntadii cunayo waxaad u jeedaan waa Turki qaarkood oo Soomaalida qaarkood u dadaalayo ninkan aad u jeedaan waa milkiilaha maqaayadda saab ee ku taalo dalka Turkiga Ankara asagoo wareysi siinayo waad u jeedaan dhibaatada lagu hayo dadka Soomaalida waxaad u jeedaa waa milkiilihii labaad oo la fajacsan dhibaatada meesha ka socoto Soomaalida waxaan ka rajeynayaa inay dawladooda dhistaan dadkooda garabka raacaan isku tashtaan fadlan la xiriir dadka kale فيديو kala kulmeen dhamaantiin waxaan leenahay amaana Allah Soomaalidana insha Allah waxaan leenahay ilaahay waxa wax ka wanaagsan siiyo